ICE maalmahan waa laga nastay laakiin raafkoodii iyo balaayadoodii ay bilaabi rabaan goordhow maraykanana ka bilaabi doonaan khaasatan gobolka Ohio dadka sharci la'aantayna tarxiili doonaan ha u badanaan dadka Haitiyaanka oo ka dhacay TPS-ka shalay July 2026 dadkan Haitiyaanka sharciga TPS-ka haystay 350,000 ka badanaa lagu qiyaasaa Trumpna wuxuu rabaa in dadkan wada tarxiilo waddankoodii geeyo markaas waxay tiri shaqadeenaan bilaabeynaa meel walbo Maraykan Haitiyaan joogana waanu ka tarxiilanaa waddankoodan ku celinaynaa gobolkan Ohio 50,000 oo Haitiyaana ku nool 15,000 magaalada Columbus 35,000 Springfield Ohio marka Ohio mar weekend ama la filayaa inay ka bilaabaan operationka qof walbo sharci la'aan dhaatadiisa markaas haystaan Haitiyaan kelima tarxiilayaane Soomaalida ku darayaan qof walbo sharci la'aan oo TPS ka dhacay ayay aruurinayaan raafayaan tarxiilayaan marka dhalinyarada Soomaalida hal is ilaaliyo hala taxadaro ee Columbus ku nool ama gobolka Ohio ku nool ay shaqada mar bilaabanaysaa cida la cidi sharci la'aan oo hor istaagaysaa oo qabanaysaa dadkan Haitiyaanka waddankooda dagaal ka socdo waqtigiin oo gangistara waddankii maamulo waddan amni darro ah waaye 340,000 qof oo Haitiyaanka waddankan Maraykanka waxay maadaan sidoo kale ka shaqeystaan nolol ka samaystaan Trump iyo cunsurinimadiisa iyo xukuumaddiisana midaas ma rabaa inay joogaano marba hadduu hada TPS-kii work permit-kii ka dhacay ay diyaashii ka dhacay wuxuu rabaa marka qasab inuu ku tarxiilo ayagana waxay rabaa inay joogaan Allah fududayaan leenahay ayaga reer Ohio hala taxadaro raggii ICE ahaa ayaa goordhow shaqadooda bilaaban doono hala is ilaaliyo Allah